وصية الأولين والآخرين ومحي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نبي إبراهيم عليه السلام يلاشي سوحو كيري وبدكيغيو إلهي الدين تاسو إني دورتي يينا أجشي يجيردو نيمن إلا إنكو دين تاي حريقا هايستما هنا هداي نيتي ما دا أجشو إنكو حريقا هايستنا واللي بانتين هداي أجشو إنيتي ما دا إنكو حريقا هايستنا خسارة waxaad ku dhacdeen weligaan laga soo kamayn khasaarada adduunyada waa laga kamaa laakiin khasaarada aakhira lagama kamo dalbay dhibaato ka dhacday waa laga soo baxay dadka badankoodu way ka baxeen quruumo kale reer baadiya dalkii bas ka qabsaday dadkii wax yaqaaneen mutacallimiintii waa ka soo baxeen meeshana waa kala sigeer cascasiye baawr la iska wada wato laakiin dhibaatada aakhira halkee looga qaxaya ma jirto meel loo soconayo haddii la yidhaha hebel qiyaamaha uu khasaaray khasaaro wuxuu ku dhacay uu weligii ka soo kacayn qur-aankuna aad buu uga warramay maalinka qiyaamaha yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-an waalamru yowmaidin lilah yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh yowma yafiru almaru min akhiihi wa ummihi wa abiih yowmaidin يود الذين كفروا يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا إلهي بالله فكيف لا تتقون ميانا عبسنين با إلهي ليه سندو عبسنين هذا خالقين إنكرتان ونعمدوا النسياء هذا إنكرتان وتهوديني شهوات كنا أذرعدان ميانا كعبسنين وقيران مالين ilmaha yar markuu banka qiyaamo la joojiyo timihiisa isla markiiba cadaan isku bedeli doonaan yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh waa maalin wajiyada qaarna ay iftiimayaan baa ilaahay yidhi qaarna wajiyadu ay madoobaanayaan yawma yafiru almaru min akhiihi waa maalinta qofku hooyadii walaalkii ubadkii xaaskii ay kala baxsan doonaan maanta waa la isku yaacayaa adduunyada waa la isku yaacayaa hadday dhibaata timaado dadku dhibaatada maanta waa iska kaalmaysanayaan nin walba kii halkan jooga dadkiisii waxbuu u dirayaa laakiin qiyaamaha cidna cid wax u diri mayso hooyadaadii macaanayd ee ku dhashay haddii la yidhaahdo miisaanka ayaa lagu hayaayo hal xasana ayaa ka dhiman ee si hadday xasanaysa jannay galaysaa qof kasti wuxuu leeyahay maalintaa may ilaa naftayda jannahan ku hubsanaya cid maaqaana buu leeyahay yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim baleg yowma laa yajzi waalidun can waladihi waa maalinta waalidku ilmihiisa wax u qaban karayn cunuguna aabihi waxba uu qaban karayn qur-aanku maalinta aad buu uga warramay laakiin ayaa maanta kuwaan toobaya iyaase waru hayaba warkana ayuuba saameeyeyba maanta ayuu saameeyey xasan albasri ayaa raabica ayuu ku yidhi maad guursatidaa waxay tidhi imaam xasanow waxay tidhi afar aayadood oo qur-aanka afar mas'aladood oo qur-aanka ku taalla ayaa walwalkii ayaa raaxadii iyo hamigii iga qaada bay tidhi waxay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay in maalinka qiyaamaha dadku ay laba u kala baxa inay dadku laba u kala qaybsamayaan qolana kitaabka midigtay ka qaadan qolana bidixday ka qaadan labadaa qoloqoladan ku jiraa iyo caddayn bay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay miisaanka in acmaasha la saaraayo qofka khayrkiisa cuslaadana janno inuu ku waariyaayo qofka sharkiisa cuslaadana naarta inuu ku hoyanaayo labadaa midaan ku jiraa iyo kala caddayn bay tidhi jidka siraadin la marayo qur-aanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labadaa qoladaa ka mid ahaa iyo caddayn bay tidhi fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir baa la yidhe fariiqaan ku jira ayaa ii caddayn bay tidhi waa raabica humuum qofka meel u caddahay meeli ka madow dadka zamankan adduunyadan aan la weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhiradaa la weynaatay aakhiradii markay weyneeyeenna noloshii adduunyada waa u dhib yaraatay raaxadii adduunyada waa ifka u soo baxday maxay tahay adduunyadu cish maa shi'ta fa innaka mayit jibriil baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi intaad doontaba noolow kii dhinta un baatee qorshaha ku darso wacmal maa shi'ta fa innaka majziyun bihi camalkaad doontana la imo waa laga abaalmarin doonaa qiyaamahiisa ogow waxbin man shi'ta fa innaka mufaariquhu ciddaad doontana jeclow adiga iyo ciddaad isjeceshahayna mawdkani kala geyn doone caalamkana ku nool lahay
marka loo eego cawaalimta ka dambaysa caalamkan adduunyadu wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eego cawaalimta dambaysa caalamu dunya waa 60 sano 70 sano caalamulbarzakh ayaa ka badan caalamka adduunyada dadkii zamankii nebi aadan dhintay ilaa joogadeenna caalamkaasay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa loogu janneeyey alqabru ima rawdatu min riyaadi aljanna wa ima xufratu min xufari naar buu nebigu yidhi qabrigu laba mid buu noqonayaa ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonayaa ama godgodadka naarta ka miduu u noqonayaa sayidina cusmaan radia allahu canhu mar alle markuu qubuuraha yimaada lilmadaa ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow janniya naar marka laga sheekay ma oydide qabriga maxaa